Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran janalkeena Zack Multimedia. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago su'aal oo inta badan ay iga soo weydiiyeen asxaabta social media. Su'aashan waxay tahay sida loo sameeyo cinematic black border. Ugu horreyn haddaad maqasho waa maxay cinematic? Cinematic waa video kaasi uu ka kooban yahay color correction, color gradient iyo sound FX-ka iyo wax walbo videogaasi qurxin kara. Sidoo kale waxaan hilmaam ku jirin waxaana ku jiro cinematic black border waa boodarada madowga ah oo inta badan fiidiyoyada filmiska lagu daro sida haddii aan lahayn filimada Hollywoodka iyo Bollywoodka inta badan waa loo adeegsadaa cinematic black border. Sidaad u jeedo videogan wuxuu ahay markiis hore sida tan. Sidaad u jeedo videogan wax black border kuma jiro laakiin markaan black border aan gelinay sidaan oo kale ayuu inoo noqday. Sidaad u jeedo waxaan iskugu soo furayaa qaab open oo kale ayuu sameynayaa kadibna wuxuu iskugu ekeenayaa cabirkii aan rabnay in aan black border-ka aan gelino. Marka aan idinla wadaago sida loo sameeyo cinematic black border. Ugu horreyn waxaan soo furanaynaa Adobe Premiere Pro ayaan soo furanaynaa. Ugu horreyn markaan Adobe Premiere Pro aan sidan ku soo yara furano marka ugu horeyso cinematic black border laba qaabood waa loo sameyn karaa. Insha Allah marka labada qaaboodba muuqaalkan waan idinkula wadaagi doonaa sida ugu fudud ee loogu sameeyo. Ugu horreyn marka videogan wuxuu noo yaalaa project panelka. Marka waxaan yara keensanaynaa timeline-ka meesha lagu yara habeyn lahay. Kadib marka waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay new sequence from the clip ama drag and drop it waad ku soo yara sameyn kartaa waad soo yara jiidi kartaa. Haddii hadda videogan aan play aan dhahno marka sidaad u jeedo videogani bilaawgiisa ilaa dhamaadkiisa sidaad u jeedo meeshan wax black border ah kuma jiro. Marka sidee ayaad ku soo gelin kartaa black border? Marka waa step-ka koowaad ee aad ugu dhigi karto black border. Ugu horreyn waxaad tagaysaa effects-ka ayaad tagaysaa. Markaad effects-ka aad tagto kadibna meeshan effect searching-ka ayaa waxaad ku qoraysaa effect-ga lagu magacaabo crop. Markaad crop sidaan aad u yara qorto kadibna markuu effect-ga uu ku yara soo baxo kadib effect waad soo yara jiidaysaa waxaad ku soo yara duldeynaysaa videoga ayaad ku soo yara duldeynaysaa. Marka haddaad videoga sidaan aad ugu yara sii dayso kadib weli wax saameyn ah nooma uusan sameynin muuqaalkeena. Marka si uu saameynta noogu shaqeeyo ugu horreyn waxaan tagaynaa effect control ayaan yara tagaynaa kadibna scroll-ka ayaan qaybta hoose u soo yara wadaynaa. Marka sidaad u jeedo waxaad yara raadinaysaa effect-ga aad ku soo dartay magaciisa. Anaga hadda sidaad u jeedo waxaan ku soo yara darnay effect lagu magacaabo crop. Marka hadda waxaan ka yara rabnaa in aan qaybtaas sare aan black aan gelino qaybtan intana aan black aan gelino. Ugu horreyn qaybtan sare ayaad waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale 8 oo kale ayaad leedahay. Sidaad u jeedo qaybtan sare hadda waxaan soo yara gashay black. Sidaad u jeedo qaybta hoose button-kana haddaad 8 oo kale aad ka yara dhigto sidaad u jeedo marka labada dhinacba waxaa noo soo yara galay black ayaa noo soo yara galay. Laakiin videoga sidaan ayuu ku bilaabanayaa laakiin ma soo galayo wax lagu magacaabo open boundaries. Video isfurayo kale kuma soo yara galayo. Sidee ayaan sidaasi aan ku gelin karnaa videogeena? Haddaan play xitaa aan dhahno sidaad u jeedo videoga nooguma soo yara kacayo markiis hore in wax is yara furayo kale kuma soo yara kacayo. Marka sidee ayaad ku sameyn kartaa sidaasi? Ugu horreyn reset iyo reset oo kale aan iska soo yara dhahno kadib meeshan sida jeedo qaybta top-ka animation-kiisa ayaad on siinaysaa. Qaybta bottom-kana animation-kiisa ayaad on siinaysaa. Marka qaybta top-ka ayaad waxaad ku qoraysaa cabirkiisa waxaad ka yara dhigaysaa conton kadibna midkan waxaad ka yara dhigaysaa conton. Sidaad u jeedo videoga dhammaan waa nagala wada qariyay. Marka xoogaa yar daqiiqado seconds yar ah ka soo fogow kadibna inta aad black border aad u rabto ayaad gashanaysaa. Tusaale ahaan anaga 8 oo kale inuu noogu ekaado ayaan rabnaa cabirka 8 oo kale kadibna button-ka 8 oo kale aan ka yara dhigno. Marka hadda sidaad jeedo videogeena markiisa ugu horeeya oo noo bilaabanaya sidaan ayuu noogu furmayaa. Sidaan sahlan ayuu inoogu furmayaa. Sidaad u jeedo videoga sidaas sahlan ayuu ku yara furmayaa. Marka haddii meeshan sidaad u jeedo haddii labadan keyframe aad isku soo yara dhaweyso qaab speed ahaan ayuu ku soo yara galayaa. Laakiin haddii labadan keyframe aad kala fogeyso qaab slow motion ahaan ayuu ku soo yara galayaa. Marka qaabka ugu hore ee loo sameeyo cinematic black border waa qaabkani. Qaabka labaad sidee ayaa loo sameeyaa? Qaabka labaad ee loo sameeyo waxay tahay in aad project panel-ka hadda aan ku yara laabano kadibna project panel-ka aan double click aan siino.
marka sida meeshan aad ugu jeedo waxay noogu diyaarsan sawir PNG oo cinematic ah. marka sawirkan waxaad ka yara samaysan kartaa Photoshopka. haddii aad rabtana waxaad kala soo degi kartaa dhanka iyo social media khaas ahaan Google ayaad kala soo degi kartaa. marka sidaad u jeedo sawirkan in uu PNG yahay waxaan kugu yara tusin doonaa. ugu horreyn sawirka ayaan right click leenahay kadibna waxaan leenahay properties. markaan properties aan dhahno sidaad u jeedo marka sawirka extensionkiisa waa PNG, resolutionkiisana waa full HD 1920 marka qaabka ugu fudud ee aad kala soo degi karto dhanka iyo Google-ka ugu horreyn ani browser aad isticmaalayso ayaad furanaysaa. kaliya markaad kaliya aad soo furto Google Chrome-ka kadibna qaybtaas sare ayaad waxaad ku qoraysaa cinematic PNG. marka taagiska ayaan iskaga yara dhufanaynaa oo cinematic Paris PNG. waxaan rabnaa in uu noo soo yara bandhigo inkastoo xoogaa yar Soomaali waqti xaadirkan uu khadka ka yara xun yahay waan iskaga yara adkeysanaynaa. marka kadib sidaad u jeedo cinematic Pariska meelahan ayaad kagala soo degsan kartaa oo Google-kan ayaad download ka soo yara dhihi kartaa. haddii rabto dhanka imageska markaad doorato wuxuu kuu soo yara saarayaa cinematicyo aad u fara badan. marka midka markaasi kaa cajabgeliyey ayaad kala soo degaysaa. kaliya sawirka aad rabto ayaad qaab PNG ahaan ayaad usoo yara degsanaysaa. kadib marka hadda aan Chrome-ka aan minimize ayaan iska yara dhahno oo hadda Chrome-ka markaan kasoo yara baxno ugu horreyn markaad waxaan ku yara dhufanaynaa sawirkii hadda aan u baahnayn. kadib wuxuu noo soo galayaa project panelka. laakiin hadda meeshan sidaad u jeedo waaba inoo saaran yahay oo crop ayaa ku yara jiro. marka ugu horreyn effectigan ayaan ka bixinaynaa dhanka cropka ayaan galaynaa right click kadibna waxaan leenahay clear oo videoga noogu bixi effectigani. kadib marka waxaad samaynaysaa kaliya sawirka PNG waa soo drag-gareynaysaa waxaad yara saaraysaa videoga korkiisa ayaad yara saaraysaa. markaad sidaad aad ugu yara saarto kaagama baahno wax effecti ah. sidaad u jeedo marka videoga inta uu la egyahay ayaad kusoo yara jeedaysaa. hadda marka sidaad u jeedo wax kaagama baahno wax effect kaliya sawirkaasi waxaad kala soo degaysaa dhanka iyo Google-ka. sidoo kale marka sawirkan wuxuu ku fiican yahay kii hore effectiga crop wuu jarayay videoga. laakiin hadda kan waxaad ku sayra samayn kartaa videogaaga intaad rabto in aad scale-kiisa iyo up iyo down-kiisa in aad yara saxan karto. marka haddii aad tagto effect controlska ugu horreyn marka iska yara fiiri in ay ku dooran tahay videoga kadib up iyo downga inta aad ka rabto videoga in uu ku yara soo muuqdo. laakiin midkan oo kale ma uusan lahayn waayo waxaa yara keenayso effect ayaa saarnaa. effectigaasna wuxuu sameynayay wuu jarayay videoga dhammaantiisa. marka sidaas sahlan ayaa loo sameeyaa. marka labadan qaabood waad adeegsan kartaa oo cinematic black border oo loo sameeyo. marka insha Allah waxaan rajayn doonaa in ashirkan dhammaan asxaabta ku xiran channelka Zack ay ka wada faa'iideysan doonaan. marka intaas ayaan jeclaystay inaan idin wadaago. fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeyso channelkeena soo booqato fadlan subscribe saar furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhaco muuqaal walba aan soo gelino. haddii aad videogan ka faa'iideyna la garee si YouTube-ka videogan ay usii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale aanan ogeyn. lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ay ugu faa'iideystaan. ugu dambeyntiina waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.